بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله محمد وصحبه وسلم تسليما. halkan waa xarunta la talinta dadka iyo horumarinta shaqada Dictorey Safiin. walaashay idla hadlaysa waa Dictorey Safiin. walaalayaal caawa waxaan soo gudbinaynaa fadliga bishaan Shabcaan ayaan isku soo gudbinaynaa, is xasuusinaynaa insha Allah ilaahay idinkiis. dadku hadday muslim yihiin, dadka islaamka ah sida bari waxay iskugu dardaarmaan waxyaalaha khayrka ah, waxay is xasuusiyaan waxyaalaha khayrka ah. waxaan si aad iyo aad ugu hambalyeynhayaa ama ugu halkan ka xushayaa culimmadeena khayrka badan ee khayrka noo soo gudbisa, na soo xasuusisa khayrka. dadkeena caamada ah oo semberi dadku waa culummo iyo caamo, ilaahay baa ka dhigay. marka na soo xasuusisa khayrka ayaan si aad iyo aad ugu hambalyeynhayaa ama ugu ku xushayaa halkan. maadaama aan nahay dad islaam ah, waxaa loo baahan yahay inaan is xasuusino waxyaalaha khayrka ah. caawa halkan waxaan ka duubayaa 15 Shacbaan waaye, bishii Shacbaan oo ka horeysay Ramadaanka. marka dad badan baa kolleyba wax ka xusay ama dadka xasuusiyey, aniguna dadkaas ayaan insha Allah ka mid noqonayaa. haddee waxaan leeyahay meel kastoo adduunyada daafaheeda dadka islaamka ay joogaan, bisha ha ka faa'iidaysteen, habeenkaas khayrkiisa ha ka faa'iidaysteen, maalinka khayrkiisa ha ka faa'iidaysteen. bisha Ramadaanka dabaaldegeedu waaye, waxa waaye isdiyaarintii waaye, intaan Ramadaanka la gaarin isdiyaarinteedii waaye. bishaana waa barako badan tahay, laakiin meesha loo digdigleeyo loo socdaa waxa waaye waa in la isku diyaariyo wixii khayra, la isku diyaariyo bisha Ramadaan fadligeeda la isku diyaariyo. bisha ka horeysa waxa dhan waa bilo khayr badan oo fadli badan oo ilaahay nagu barakeeyey, ilaahay nagu nimceeyey. marka inaan is xasuusino oon weeye macnaheenu. qof kastoo culummo iyo qof kastoo caamahaba waxa waaye is xasuusintu waa shay muhiim ah, in la is xasuusiyo waa shay muhiim ah. waxaan leeyahay gabdhaha iyo walaalahay ah oo inta badan haweenku waxa waaye waxyaalo kaloo mashquul badan iyo dhibaato kaloo mashquul ah iskaga jiraan. marka waxaan kula dardaarmahayaa inay ka faa'iidaystaan Shacbaanka, habeenka 15 bisha Shacbaanka oo salaadaha badiyaan, oo khayrka badiyaan, oo soo jeedaan, oo in allaale intii la soo jeedi kartay soo jeedaan, oo caruurta loo duceysto, oo reerku isku duceeyo, nin iyo ka naagba la isku duceeyo, oo aad iyo aad niyadda la iskugu furo, oo raggu iyo gabdhaha isqabaa gacanta isa saaraan, oo raalli iska noqdaan, macnaha is cafiyaan. ummadda muslimiintaana dhammaan intii qof walba qof kale wax ka tabanayo asaguna cafis iska dalbo, ilaahay hortiisa cafis u dalbo, rabbi hortiisa, wejiga ilaahay hortiisa inta istaagayra ilaahay hebel iyo hebel iyo hebel iyo hebel waa dhibeen waxaasay igu suubiyeen, laakiin anigu wejigaagaan ku cafiyey. ilaahu rabbiyo hortaadaan ku cafiyey. intaas ajar iyo khayr iyo wanaag baa looga qorayaa. marka qof walba waxaan rabaa inuu iska cafiyo qofkii kaleeto dhib ka tirsanhayo. haddii asaga dhib laga tirsanhayana haddee inuu xasuusiyo, rabbi xasuusiyo, yidhaahdo ilaahu aniga lafteyda dhibkaas iyo hebel waa u galay, ilaahu uga cafi. marka in la is cafiyo, rag iyo dumarkuna iyo haweenka isqabaana is cafiyaan, si gaara aad iyo aad iskugu cafiyaan, oo is xasuustaan, oo is cafiyaan. ilmaha laftigooda in la baro cafiska maantaas iyo habeenkaas oo dhan la yidhaahdo hooyo is cafiya, la bara ilmaha saqiirka cafiska si bisha
shacbaanka ula qabsadaan oo maaragtay bisha shacbaanka 15 waaye waa soo jiitantay hore soo badatay laakiin waxa waaye habeenkaasa sida badanba la xusaa oo aad iyo aad lagu xusaa khayrka badan iyo maaragtay in maaragtay lagu xusaa marka inaan ka qayb qaadano annaguna maaragtay oo dadaalno weeye ujeedada aan maaragtay usoo galay ilaahay idinkiis marka rabbi ha noo saqiro rabbi ha noo saqiro rabbi ha noo fududeeyo ilaahay idinkiis waa isku ducaynaynaa aniguna muslimiinta waa u ducaynhayaa ayaguna insha allahu ha iisoo duceeyeen qof walbana muraad buu leeyahay qof walba muraadkiisa allah u aqbalo qof walba ilaahay muraadkiisa ha u aqbalo qof walba ilaahay diinta ha waafajiyo qof walba rabbi meeshuu ka maaragtay ka dhiban yahay ilaahay dhibka ha ka qaado muslimiinta ilaahay waalidiinteenna ha cafiyo tidhimata allah u naxariisto ilaahay idinkiis anuu ducada ka xishoon mahayo waxaan u ducaynayaa muslimiinta anna in la iisoo duceeyaan rabaa muraadaan leeyahay ilaahay idinkiis qof walba oo dhiban oo meel ka dhiban hadduu jiran yahay hadduu risqiga caafimaad la-aan maaragtay hadduu risqi la-aan hayso oo risqiga ciriiri uga jirto intaasba waxaan leeyahay ilaahay qof walba meeshu maaragtay ha u saqiro qof walbana ilaahay qulubtiisa ha geliyo nabad iyo khayr alla ha geliyo qulubtiisa waddankeena ilaahay ha noo dejiyo waddankeena waddan barwaaqaysan ilaahay ha nooga dhigo Soomaaliya beledul aamiin ilaahay ha nooga dhigo ilaahay beled aamiinna geli beledkeena beled aamin oo khayr badan allah na geliyo ilaahay dowlad caadila allah na siiyo dowlad caadila oon dhibin oon maaragtay nagu tarfalin ilaahay ha na siiyo oo ummadeeda iyo muslimkeeda iyo masaakiinteeda u naxariisata allah na siiyo mid caadila allah na siiyo xukun caadila allah na siiyo dowlad caadila ilaahay ha na siiyo ilaahayow rabbiyow ammaankaagaan ammaanna geli ilaahu dalkan Soomaaliya qalqalka iyo dhibaatada ka bixi ilaahay idinkiis ilaahu dalkan Soomaaliya dhibaatadii qalqalka ka bixi marka waddanka ha loo soo duceeyo sababtoo waddanka haddaan loo soo duceyn ilmahaaguna kuma noolaan karaan adiguna kuma noolaan kartid waxaa rabtidna ma samayn kartid marka waddankan ilaahay inuu maaragtay waddan beledul aamiin ilaahay nooga dhigo oo dowlad caadila ilaahay na siiyo oo dhibka iyo gaalada iyo balaayada waxa na dhibahaya ilaahay naga qabto ha loo soo duceeyo Soomaalidana ilaahay dhexdooda maaragtay khayr iyo liibaan ilaahay dhex dhigo dad sharaf badan oo wanaagsan oo khayr badan ilaahay inuu ka dhigo insha Allah ilaahay idinkiis waxaan ilaahay ka baryahay ducadeena ilaahay oo aqbalo caawa habeen shacbaan ducadeena ilaahay oo aqbalo muslimiinta ducadeedana ilaahay ii aqbalo insha Allah bikun khayr اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله محمد وصحبه وسلم